kusoo dhawaada markabley media qodobada wararkeena ugu waaweyn waxa ay kala yihiin baarlamaanka Puntland oo xasaanadii ka qaaday dhoobadaareed maleeshiya dil iyo dhac ka geystay walaweyn maxay ka wada hadleen lafta gareen iyo James Iswan Kenya oo shaacisay maskaxdii ka dambeysay weerarkii dadka lagu laayay ee ka dhacay waqooyi bari dalka Kenya ciidamo loo diray maleeshiyaadkii ku dagaalamay gobolka Mudug wararka dibadda warka markabley media idin haysana waxa kamid ah dagaal ganacsi oo ka dhax bilowday Canada iyo Mareykanka qodobadaas iyo qodobo kale oo daasoon ayaad ku daawan doontaan warka markabley media haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe dhagan baleelkana furo si warbixinadeena iyo wararkeena aysan ku seegin waa 10ka bisha December 2019 kusoo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan aan ku bilowno warkeena baarlamaanka Puntland ayaa xasaanadii ka qaaday dhoobo xildhibaanada baarlamaanka maamulka Puntland ayaa xubinnimadii xildhibaannimo kala noqday Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo oo mudanayaashu ay eedeen u soo jeediyeen kulanka baarlamaanka Puntland ayaa xaadiray 41 mudane waxaana 40 kamid ah xildhibaanada ay u gacan taageen in xasaanadii xildhibaannimo lagala noqday dhoobo daareed banada mooshinka ka keenay Cabdixakiin Dhoobo ayaa waxa ay ku eedeeyeen in uu ku xadgudbay dastuurka iyo sohdimada maamulka Puntland xildhibaan Cabdixakiin Dhoobo oo xilka gudoomiyenimo laga qaaday 7 bishii hore ee November ayaa tan iyo markaasi ka maqnaa kulamada baarlamaanka iyo guud ahaan magaalada Garowe sidoo kale wuxuu haatan ku sugan yahay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya halkaasi oo uu ka wado dhaqdhaqaaq siyaasadeed ma jiraan wali wax war ah oo ka soo baxay Dhoobo maleeshiya dil iyo dhaawac ka geystay walaweyn maleeshiya hubeysan ayaa waxa ay dad shacab ah dil iyo dhaawac ugu geysteen gudaha degmada walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose arintan ayaa ka dambeysay kadib markii maleeshiya hubeysan ay weerar ku qaadeen degmada walaweyn isla markaana ay dileen macallin dugsi quraan oo lagu magacaabi jiray Cusmaan Cirbad halka qofka kalena ay halkaasi ku dhaawacmeen weerarka ayaa la sheegayaa in uu salka ku hayo aanooyin qabiil oo maalmahan ka taagneed degmada walaweyn isla markaana dadkii ka dambeeyay falkan ay ka baxsadeen sida ay sheegayaan dad goobjoogayaal ah ma jiraan wali wax war ah oo ka soo baxay maamulka gobolka Shabeellada Hoose maxay ka wada hadleen lafta gareen iyo James Iswan oo kulan gaar ah yeeshay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxa gaaray wafdi uu hogaaminayo wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador James Iswan iyadoo halkaasi lagu soo dhaweeyay madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wakiilka qaramada midoobe ee Soomaaliya iyagoo kulan gaar ah ku yeeshay xarunta madaxtooyada Koonfur Galbeed ee magaalada Baydhabo kulanka ayaa waxa ay uga hadleen arrimo ku saabsan xaaladda dalka doorashada Soomaaliya ku soo fool doorka dawlad goboleedyada ay ku yeelan karaan iyo arrimo la xiriira dib u eegista ku socota dastuurka Soomaaliya wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador James Iswan ayaa maalmahan waxa uu wada kulamo uu la qaadanayo saamileyda siyaasadda Soomaaliya waxaana uu la kulmay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya gudoonka labada aqal iyo xubno kamid ah musharaxiinta madaxweynaha Galmudug dhanka iyo Kenya hadii aan eegno Kenya ayaa shaacisay maskaxdii ka dambeysay weerarkii dadka lagu laayay ee ka dhacay waqooyi bari Kenya dawladda Kenya ayaa shaacisay magaca ninkii hogaaminayay weerarkii jimcihii la soo dhaafay ka dhacay Wajeer oo ku dhinteen 11 qof sirdoonka dalka Kenya ayaa sheegay in ninka hogaaminayay kooxda ka tirsan Al-Shabaab ee weerarkaasi geystay uu ahaa macallin iskuul oo deegaanka Wajeer ku yaala magaciisa waxaa lagu sheegay Maxamed Xuseen Xasan oo baraka ahaa dugsi hoose oo ku yaala Wajeer ay sheegeen in uu ahaa ninka hogaaminayay weerarka
jimcihii lagu dilay 11 qof ee aan muslimka ahayn. weerarkaasi ayaa waxaa lagu qaaday bas ka baxay Nairobi kuna socday Mandera. waxaa la socday 56 qof waxaana 15 nin oo uu hogaaminayay Maxamed Xuseen Xasan ku qabteen inta u dhaxaysa Katulu iyo Wargaduudo, halkaas oo ay dadka u kala saareen muslimiin iyo dad aan muslim ahayn. waxa ay halkaasi ku dileen 11 qof oo 8 ka mid ah ay ahaayeen saraakiil boolis ah oo shaqadooda dib ugu laabanayay, halka mid uu ahaa dhakhtar, inta kalena lagu sheegay in ay ahaayeen dad rayid ah. sirdoonka Kenya ayaa sheegay in Maxamed Xuseen Xasan uu ka tagay macalinimada kuna biiray al-shabaab isaga oo aaday gudaha Soomaaliya. dhanka iyo Mudug haddii aan eegno, ciidamo loo diray maleeshiyaad ku dagaalamay gobolka Mudug. taliska qaybta 22aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ka howlgala deegaanada Galmudug ayaa waxa ay ciidamo fara badan u direen deegaanada lagu dagaalamay ee hoostaga degmada Tawfiiq iyo tuulada Afbarwaaqo ee gobolka Mudug. ciidamadan oo wata gaadiidka dagaalka ayaa waxa ay ka ambabaxeen magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug, waxaana iyaga oo kaashanaya ciidamada isku dhafka ah ee xasilinta ay kala dhaxgali doonaan labada maleeshiya beeleed ee dirirtu ku dhaxmartay halkaasi. dhinaca kale, magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa ay sheegayaan in magaalada Gaalkacyo ay gaari doonaan saraakiil uu hogaaminayo taliyaha ciidamada lugta ee xoogga dalka Generaal Cabdixamiid Maxamed Dirir si ay uga qayb qaataan joojinta iyo xalinta dagaalka gobolka Mudug. inkastoo xilligan ay degan tahay xaaladda deegaanada lagu dagaalamay ee bariga gobolka Mudug, ayaa haddana dadka deegaanadaasi waxa ay sheegayaan inay cabsi dareemayaan maadaama maleeshiyaadka ay weli ishor fadhiyaan. dagaalka marka labaad maleeshiyo beeleed ku dhaxmaray duleedka degmada Tawfiiq ee gobolka Mudug ayaa la sheegay in ay ku geeriyoodeen in ka badan 20 ruux, halka tiro intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen. wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa ka qayb galay shir ka dhacay magaalada Nairobi. shirka wadamada Afrika, Karibiyaanka iyo Basifiga ee ka socda dalka Kenya ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Nairobi, kaasi oo uu Soomaaliya shirkaasi ku matalayay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya mudane Axmed Ciise Cawad. wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in shirka looga hadlay arrimo badan oo quseeya madaxda dalalka ka qayb galay, isla markaana loo soo jeediyay in gobol ka mid ah 5 gobol ee qaaradda Afrika laga saaro ururka. shirku waxa uu isku raacay in ururka loo bixiyo magac cusub, halkii la dhihi jiray IMACB hadda waxa uu noqonayaa OACB oo ah ururka dalalka Afrika, Karibiyaanka iyo dalalka Basifiga. waxaa kaloo madaxda ururka ay soo jeediyeen in Afrika laga dhigo 4 gobol halkii awal la isku qaadi jiray, taasi oo meesha ka saaraysa gobol ka mid ah gobolada 5 ah ee Afrika. inkastoo aan go'aan rasmi ah laga soo saarin soo jeedinta, ayuu yiri wasiir Cawad. daawadayaal, haatanna akhbaaraadka caalamka. dagaal ganacsi ayaa ka dhex bilowday Canada iyo Mareykanka. dowladda Canada ayaa waxa ay ku dhawaaqday in ay canshuur ku soo rogi doonto shirkadaha waaweyn ee Mareykanka sida Google, Apple iyo kuwa la mid ah ee ka howlgala wadanka Canada. inkastoo aanay shaaca ka qaadin xaddiga canshuurta ay ka qaadayaan shirkadaha Mareykanka laga leeyahay, hadda waxaa muuqata in dowladdu ay doonayso in kambaniyadani ay canshuur ku soo rogto. mana jirto wax war ah oo ka soo baxay Mareykanka iyo shirkadaha intuba, laakiin waxaa jirta in uu aad u wanaagsan yahay xiriirka labada dal. waxaase la filayaa in
Washington ay jawaab ka bixin doonto hadalka ka yimid dhanka iyo Canada. dhawaan ayay ahayd markii Faransiisku uu daaha ka qaaday in uu canshuur ku soo rogayo shirkadaha dhanka tiknoolajiyada ah, waxaana durba ka falceliyay madaxweyne Donald Trump oo isaguna sheegay in canshuurta la mid ah ku soo rogayso shirkadaha Faransiiska. tan iyo markii Trump ku guuleystay madaxtinimada Mareykanka waxaa sii kordhayay dagaalka dhanka ganacsiga ah ee dowladda Mareykanka kala dhaxeeyo qaar ka mid ah wadamada caalamka. warkii oo aad kala socoteen Markabley Media aqoonta qiimaha iyo qadarinta mudan xilligan waa naga inta. tani intaan warkan warka xiga ku kulmi doono amaana Allah.